Nin taajir ah oo u dhashay dalka Ruushka ayaa daaqadda gurigiisa ka arkay nin guri la'aan ay hayso oo xitaa aanan haysanin dhar, barafkana uu saaran yahay dushiisa. Intuu ka naxay ayuu hoos u soo degay, wuxuuna ku yidhi isagoo ku hadlaya cod jilicsan, "Maxaan kuu qabtaa walaal?" Kadib ninkii faqiirka ahaa ayaa ka codsaday taajirkii inuu u keeno jaakadda dhaxanta. Taajirkii oo aad uga xun rafaadka iyo silaca uu ku nool yahay ninkani, ayaa wuxuu ka ballan qaaday inuu u keeni doono jaakad weyn iyo weliba casho culus oo degdeg ah. Kadib taajirkii gurigiisa ayuu ku laabtay. Nasiib darrose, dhowr taleefan oo u soo dhacay darteeda, ninkii taajirka ahaa wuu hilmaamay faqiirkii. Markii uu waaga baryay ayuu arkay ninkii oo dhintay, warqadna ay ag taalo. Kadibna warqaddii ayuu soo qabtay, waxaana ku qornaa hadalladan: "Inta aadan ii samayn ballanqaadka, waxaan ahaa nin adkaysi u leh gaajada iyo dhaxanta. Waxaan si tabar dhigay oo dhaxanta iyo gaajada jidhkayga u nugleeyay. Waa ballanqaadkaagii beenta ahaa ee aad ii samaysay, waana sababta soo dedejisay geeridayda. Fadlan ha ii oynin geeridayda kadib, waayo waxaa jirtay mar aad wax ii qaban kartay. Maantase waxba iima gashid oo waxaan ku biiray duni kale."